waana wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada qodobada ugu doorkaran warka telefishinka caalamiga ah Hilaac qodobadaasna waxaa kamid ah madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ayaa kulan la qaatay dhaqaatiir ku howlan ka hortagida COVID-19 ee dalka Soomaaliya maamul goboleedka Puntland ayaa shaaciyay kiisaskii ugu dambeeyay ee COVID-19 waxaana haatan bukaan ahaan u jiifa maamulkaasi in ka badan 90 ruux 40 qofood ayaa ka soo bogsootay COVID-19 waxaana laga soo bixiyay isbitaal Martini reeraha bukaanadaasi ayaa si weyn ugu farxay soo bogsoshada bukaanadaasi ciidamada ka tirsan kuwa dowladda federaalka Soomaaliya ayaa isku farasaaray qayb ka tirsan degmada Yaqshi gobolka Banaadir waxaana waxyeello ay ka soo gaartay 2 ruux oo dumar ah رئيس الوزراء حكومة فدرالك الصومالية وحو كنا لقاتي قدقة كورتقو COVID-19 فرمنا وحو أدري شعوبة الصومالية دل يدبد ملال بإيشوغان كيساس COVID-19 الصومالية أيا سراء أسي كعي وحنا هاتن أسي مريا كن إيا سيديتن إيا ساقال وحنا لقى بقدين قبائن كيساس كاسي وسراء أسي كعي اللي فرمك للدوانة وزارة عافيمات كي بحينيسو warka idin kaga iimaanaya telefishinka caalamiga ah ee Hilaac wadnageyntoodna ku maasantiin la socodka ila jaanqaadka warkayaga